maalin uun markii ay u dabaaldegtay xafladda meherkeeda iyo sidoo kale arooskeeda. Maria Abshir oo ku magac dheer boqoradda isteelka waxa ay iyadu kasoo muuqatay muuqaal ay kaga hadlaysatay go-aankeeda xiga iyo tallaabada xigta oo ay doonaysa inay kula midowdo seegigeeda, maadaama sida aynu ka aragnay baraha bulshada xaflad aada u weyn ay ku dhigatay magaalada muqdisho, taasi oo ay si weyn ugu damaashaadaysay xafladda arooskeeda, islamarkaana fanaaniin kala duwan ay kasoo qayb galeen, kuwaasi oo si weyn ugu hambaliyeeyey islamar ahaantaana heeso kala duwan oo caruus ah oo hambalyo duco isugu jira halkaasi ooga qaaday. boqoradda isteelka ayaa waxa ay ka dhawaajisay in ay qorsheynayso in ay la midowdo saygeeda cusub ee nolosha Haykal Maxamed Muuse, waxaana muuqaal kooban oo baraha bulshada ay ku faafisay islamarkaana tiktok ay soo gelisay ay kaga hadashay tallaabada xigta iyo halka ay doonayso in ay ku noolaadaan iyada iyo sidoo kale saygeeda cusub. waxa ay sheegtay in ay doonayso in dhowaan ay u ambabaxdo magaalada Hargeysa ee Somalilan, halkaasi oo uu ku nool yahay saygeeda Haykal Maxamed, waxaana ay sheegtay in gurigeeda cusub aada looga qabanqaabinayo magaalada Hargeysa ee dalkaasi Somalilan. boqoradda isteelka ayaa dhanka kale waxay ka hadashay cillad soo food saartay akoonka ee tiktoga saygeeda Haykal. sidoo kale waxa ay ugu baaqday qaar ka mid a taageerayaasheeda in ay tiro aada u badan oo taageerayaasheeda ka mid a ay ka codsanayso in ay Haykal oo iminka aada ugu sii siqayo 1 milyan ee followers in ay gaarsiiyaan, maadaama dhowr boqol oo qura ay uga harsan tahay, aan yiraahde in wax ka yar 20 qofood keliya ay uga harsan tahay si uu u gaaro 1 milyan ee followers. waxaana ay sheegtay inay doonayso in xaflad weyn ay ku dhigtaan magaalada Hargeysa ee Somalilan, halkaasi oo ay leedahay waa dhowr farxadood oo iminka markaasi aada iskugu soo biiray sida ay hadalka u dhigtay. farxadda koowaad waa midda guurkeeda, talabaadna waxay leedahay Haykal marka uu isagu gaaro 1 milyan ee followers waxaanu doonaynaa in aan dabaaldega iyo sidoo kale damaashaad iyo xaflad aada u weyn halkaasi uga sameynaba leedahay. dhowaanahan waxaa baraha bulshada aada loo hadalhayay guurka sida lamir filaanka uga dhacay magaalada muqdisho ee boqoradda isteelka iyo sidoo kale Haykal. lamaanahan oo muddo aada bulshada dadku ay ugala socdeen, sidoo kalena muuqaalo kala gedisan ay intooda badan kasoo wada muuqanayeen, ay soo gelinayeen barta tiktok ee aadka ugu xidhan yihiin, ayaa waxaa in dhawaalo uu jiray isu soo dhawaasho iyo sidoo kale dhexdooda xiriir aada u xoogan marka loo eego safaradii kala gedsanaa oo ay ku kala bixeen magaalooyinka Hargeysa iyo sidoo kale magaalada muqdisho, oo Haykal qudhiisa ay ku casuuntay boqoradda isteelka si la mid ah sida uu isagu ugu qaabilay magaalada Hargeysa ee Somalilan, halkaasi oo muddo ay joogtay. haddaba baraha bulshada dadka aad ku adeegsado intooda badan waxa ay weli wadaan hambalyada, iyadoo dhanka kalena ay wax iska weydiinayaan carooskan iyo waxaa soo dedejiyey, balse waxaan u rajeynaynaa nolol farxad leh oo waarta. boqoradda isteelka ayaa iminka waxa ay dadweynaha u bidhaaminaysaa in ay doonaysa in ay ku noolaato amaba ay la noolaato saygeeda cusub magaalada Hargeysa. ay sheegtay inuu yahay halka ay doonayso in ay wada degaan iyada iyo sidoo kale saygeeda. boqoradda isteelka ayaa saacadihii ugu dambeysay social mediaha aada dadka baraha bulshada ay ugu faafinayeen muuqaalo dhowra oo xafladii carooskeeda, oo inta badan ay aada uga falcelinayeen dhowr siyaabood oo muuqaaladaasi baraha bulshada sida aadka loogu faafiyey. boqoradda isteelka waxa ay ka mid tahay dhalinyarada sida aadka loogu xiiseeya baraha bulshada, hase yeeshee haddana waxaa si xoogan baraha bulshada u qabsaday xafladda meherkeeda, oo kaasi oo ku kacaya qiimo lacageed oo gaaraya ilaa 100 garaam oo dahab. dadka qaarna ay wax iska weydiinayeen. dhanka kale waxyaabaha kale ee carooskeeda wax la isaga weydiinaya waxaa qayb ka ah siyaabaha markaasi Haykal oo ah ninka iminka ay doonaysa in nolosha inteeda ka dhiman ay la wadaagto, islamarkaana gayaankeeda iyo dooqeeda noqday ay u xulatay mustaqbalkeeda. sababaha uunan uga soo muuqan xafladda meherkeeda amaba uu isagu qudhiisa ku xaadiri waayey, goobjoogna u noqon waayey, iyo qaabka uu usoo wakiishay qof markaasi ka mid a familkiisa si uu walaayadiisa u qaado amaba isaga uu ugu matalo maalinka aadka ugu weyneed ee meherkiisa. hase ahaatee
haddana waxaa si aada cudurdaar kadib dadku ay aada ugu hambaliyanayeen lamaanahan soomaaliyeed, iyadoo midba midka kalena uu u rajeynayo in ay nolol aada u wanaagsan oo qurux badan ay wadaagaan. hase haatee haddana wararkan baraha bulshada aadka lagu faafiyay oo ku saabsan qaababka ay dooneyso in boqorada isjeelka ay iyadu imika magaalada hargeysa ay ugu safarto, ay dadka qaar waxay iska weydiinayeen iyo qaabka arrintaasi ay ku dhici karto, siba marka la eego magaalada muqdisho oo boqorada isjeelka aada loogu yaqaanay oo muddo ay ku nooleed, iyo go-aankeeda xiga halka ay dooneyso in gurigeeda inta badan uu noqdo